Sacuudi Carabiya iyo Qatar oo runta u sheegay Yahuudda iyo Mareykanka. Dowladda Masar oo bayaan cad ka soo saartay shirkii wada tashiga Carabta ee shalay ka qabsoomay magaalada Qaahira. Dowladda Isbeenna Carabtii bay taageertay maanta. Waxaad isweydiinaysaa dowladihii reer galbeedku badankood maxay wadamada Carabta maanta u taageerayaan baad isweydiinaysaa. Muuqaalkan kugula wadaagayay hayga degdeg. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waa idin salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo meel kastoo dunida ka joogtaan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen. Waan rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kulansiiyey isagay mahaddaasi oo idil u sugnaatay. Ramadaan Kariim, Ramadaan Jamiil. Walaalayaal maadaama aan ku jirno bil barakeysan Ramadaan, dadkii walaaladeen ahaa ee maanta nala soomana ee afurka iyo suxuurta aanan meel ku ogeyn, walaalayaal aan furino oo aan soo xirino. Aad baa u mahadsantihiin. Muuqaalkan like-tiisa ku badi, meel dheer aan wada gaarsiino. Soo dhawaada. Bishaarada maanta aan ku hayo waxa waaye haddaad ka cabanayso baabasiirta, caga ololka, jilba xanuunka, kor cuncunka, ku darso oo weliba kor ololka, calool istaaga, kolestaroolka, dhiikar, sokor, harmooniskaaga oo isbedbedela. Ilaah baa bixiyay haddii dhanka awlaadda aad ka cabanaysana manaja Sacdii Xirsi waxay ku haysaa daawooyin dabiici ah oo ugxamadaada dib kugu soo kobcinaya. Dhanka raganimada sidoo kale manaja Sacdii Xirsi waxay ku haysaa daawooyin dabiici ah oo raganimadaada ku kobcinaysa. Ku sii darso oo manaja Sacdii Xirsi waxay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran oo 30% ah oo runtii aad iyo aad ku raaligelin doonta. Sidoo kale waxay ka caawin doontaa adigoo gurigaaga joogo, carruurtaada dhex jooga, reerkaaga dhex joogo inaad gurigaaga ku dhex ganacsato dhanka online-ka ah. Weliba waxay kugu bari doontaa si bilaash ah. Sidoo kale waxay kula dhisi doontaa group aad ka wada shaqaysataan. Haddii miisaankaaga uu culus yahay, manaja Sacdii Xirsi waxay ku siin doontaa daawooyin dabiici ah oo miisaankaada isaga dhimi doonto. Dadka waayeelada iyo carruurta yaryar ee nafaqadarrada la ildarana waxay siin doontaa daawooyin dabiici ah oo nafaqadooda dib ugu soo celiso. Waa barwaaqo iyo bashbash. Telefoon lambarkeedu halkaas ayuu kaaga muuqdaa. Waan rajaynayaa inaad soo wici doonto. Linkiga aad kala xiriiri doontona muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya ayaan kugu soo dejinnay. Ku dhufo oo halkaa kala xiriir. Aad baa u mahadsantihiin. Aad iyo aad. Walaalayaal sidaa la socotaan shalay magaaladan Qaahira way gilgilatay. Carab meel ahla meeli jirtay way isaga timid. Anigu waa idiin sheegay. Trump hadalkiisii ahaa in Mareyka Gaza ummadda degan laga raro oo laga barakiciyo wadamadii Carabta way midaysay. Awal waa la kala shakisnaa. Carab noocan isugu duuban haddii ay jiri lahayd Yahuudi ma soo hawaysan lahayn deegaano shacab Falastiiniin ay degan yihiin inay xoog ku qabsadaan ama nooca ay dhan walba uga dumiyaan. Laakiin maxay arrintaa ku dhacday? Imaaraadkii meel baa lagu xirtay, Sacuudiga meel baa lagu xirtay, Qatar meel baa lagu xirtay, Kuwait iyo Baxrayn iska badaa, Urdun warkeeda iska daa. waxa meesha badbooday uun Iran bay ahayd kaliya. Iran ayay gaartaa. Ma Xisbullah bay caawisaa? Ma Bashar al-Assad bay caawisaa? Ma jamaahiirta caawisaa? Ma Xuutiyiinta caawisaa? Ma iskala gaar yay gala gaartaa. Iran baa marka kaligeed halkaas yeydu ay ku cuntay. Laakiin Ilaahay nasrigii Trump baa laga hadashiyay. Hadalkaas Trump qolyo badan oo saameyn ku leh dunida oo Sacuudiga ugu horeeyo buhurdada ka kiciyay. Waaye haddaba ra'iisul wasaaraha dalkan wadankan Masar ayaa isagu waxa uu xaqiijiyay bayaankii ama gabagabada qodobadii lagu heshiiyey ee wadamada Carabtu shirkii caadiga aan ahayn ee ka qabsoomay magaalada Qaahira. Waxa lagu heshiiyey buu yiri in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo cadaaladda shacabka reer Falastiin, kaasoo aan dhinac loogaga leexan sidii xuquuqda shacabka reer Falastiin ay u heli lahaayeen. Waaye isla markiiba waxa hadlay amiirka dowladda Qatar. Wuxuu leeyahay waxaan ka qayb galay shirkii Carabta ee aan caadiga ahayn ee ka qabsoomay magaalada Qaahira. Waxaana ka wada hadalnay xaaladihii ugu dambeeyay ee Mareyka Gaza iyo weliba dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto. Waxaan rajaynaynaa dadaallo wada jir ah oo shaqada lagu xoojinayo iyo weliba isku duwidda wada jirka ah ee dhammaan walaalaha Carabeed si loo taageero dadka Falastiiniyiinta ah. Halkaa maxaa kaaga soo baxa? Hadalkii Trump inuu mideeyay wadamadii Carabta guud ahaan. Waayahay iyo weliba in la dhiso dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiin ah ama Falastiin ay leedahay oo caasimadeedanu ay tahay bariga Qudus si markaas ay u noqoto saldhigga xasiloonida iyo nabadda ee bariga dhexe. Qudus baa laga hadlayaa, Qudusta bari baa laga hadlaa. Waayahay isla markiiba waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudiga. Wuxuu leeyahay waxaan si cad u diidnay xadgudub kasta oo ka dhan ah xuquuqda sharciga ah ee dadka Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Waxaan xaqiijinaynaa oo aan taageeraynaa buu taagan yahay xaqa ay dadka Falastiiniyiinta u leeyihiin aaya ka tashigooda iyo inay dhistaan wadankooda. Wuxuu intaas sii raaciyay
wuxuu leeyahay waxaan carabka ku adkeenayaa baahida loo qabo in la helo damaanad caalami ah si loo dhaqangeliyo joogtaynta xabad joojinta marinka Gaza iyo in mucaawinaadkii loogu talagalay marinka Gaza si nabdoon si nabdoon ay ku galaan Sacuudiga nooca u hadlay Sacuudiga meeqa sana laga bariyay war hadal laga bariyay waya isla markiiba waxa hadlay madaxweynaha cusub ee dawladda Lebanon ayaan dhaweyta loo dooranayay ayaa isaguna hadlay waxa uu leeyahay nabadgelyo ma jiri doonto leeyahay ayadoonan qofka kale uusan xurriyadiisa ku tixgelin nabadgelyo lama heli doono wuxuu leeyahay nabadgelyo ma jiri doonto nabadgelyana lama heli doono annagoonan gumaystaha ka xoreysanin taakaba Allah ka dhiga annagoona dalkanaga gumaystaha ka xoreysan nabadgelyo lama helayo taagan yahay nabadgelyana ma jiri doonto ayadoonan dawlad Falastiiniintu ay leedahay oo madax bannaan aan la dhisin nabadgelyo lama heli doono war carabtu waa adduunku waa yaaban maanta adduunkii waa yaaban xarabaysan noo galayso in taagan waya halka markay marayso isla markiiba haddana waxa soo hadashay dawladda Spain wasiirka arrimaha dibadda ee Spain ayaa isaguna soo hadlay waxa uu leeyahay waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan tilaabooyinka dawladaha carabtu ay qaadeen iyo go'aamada ay hoosta ka xariiqeen ee ah dib u dhiska marinka Gaza deegaanadii burburayay dib loogu dhisi lahaa go'aanka ay carabtu qaateen inaguna waan soo dhaweynaynaa qayb ayaana ka nahay taasuna waxay chance iyo fursad u siinaysaa Falastiiniyiintu in si nabadgelyo ah ay ugu noolaadaan dhulkooda wadamada Yurub wadamadii Carbeed saa u daba socdo saa u leefay sababta mataqaana sababta waxa waaye waxay ogaadeen Sacuudiga hadlay Sacuudigana maxaa ka hadashiyay 1 trilyan oo lacag abad Mareykan ku maalgashanaysa markii la yiri waa lagu sacbiyay waxa la yiri abaal lagagama hayo waa lagu qasbooyaa hadirta laakiin lacagtan hadda aad ku baryoto meesa aad leedahay 800 bilyan baan ku dhisanayaa Mareykanka ee lacagtan 1 trilyan iga farageliya baryotanka ka ah Falastiin hadda ku sadaqaysan lahayd abaal bay kaaga han lahayn Sacuudiga markii lagu sabciyo saa la yiri wuu kacay kacdoon baa bilaabmay markii xagga xukuumadda ah laakiin wali arintu waa qarsoon tahay in macnaha calankii Falastiin lagu dhax qaato in mudaaharaad uu ka dhaco dadku isu soo baxaan ayagoo Falastiin taageersan wali kama jirto laakiin hadda waa dhaqdhaqaaqa madaxda sare uba anagu arkayna moogta tii marka maxay sababtay ilaa hadalkoodu saameyn buu dunida inteeda kale ku leeyahay ayaan dhaweeto madax sare oo Sacuudiga ka socdo dhanka gaashaandhigga iyo ciidamada waa tii Mareykanka looga yeeray hadalkan saameyn buu leeyahay Sacuudigu dunida saameyn buu ku leeyahay Spain iyo dawlado fara badan oo reer galbeedana way taageeraan waa kana wadamada carabta daba socdaan waxay leeyihiin waxa go'aamisan anaga oo idin kula jirnaa halka markay marayso ciidamada Yuhuudda waxay maanta soo bandhigeen tiro badan oo isugu jiro rasaas gantaalo iyo waliba bambooyin tan iyo markii uu Trump qabsaday xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka xaaladda amniga ee xuduudaha Lebanon Suuriya iyo daanta galbeed waxay Yuhuudda hadda ku tala jirtaa inay u qoondeyso ciidamo badan oo kayd ah ay u diyaarinaysaa hadda Yuhuuddu maadaama Trump meeshii uu qabsaday hubna waan helnay hubkii aan helayna waa kanaaye waxaan haddeertaan ku tala jirnaa Suuriya iyo Lebanon iyo marinka Gaza inaan u diyaarino ciidamo kayd ah si halka de weerar looga fuliyo wax kale ma ah waaye halkaas markay marayso Yuhuuddu ciidamada kaydka ay sheegayso waxay rabtaa ilaa ayaan dhaweeto Yuhuudkii weynaa waa tuu codsanayay 400 oo kun oo askari oo ciidan macnaha waxa weeyaan kayd ah ama dheeraada inuu helo si uu dagaalkan dib ugu soo laabto tuu ayaan dhaweeto laha moogta Yuhuudkii weynaa mafaaji'ay noqotay adduunku waa 400 oo kun oo ciidan intii laga keenaa waxay sameeyeen maantana inay mar kale shacabkii ku dhaxlaabteen si ay dad inta u soo qasbaan u soo qafaashaan ciidamo ay uga dhigaan meeshii dagaal baa ka dhacay marka buuq baa ka dhashay buuqii ka dhashay waxa ku dhaawacmay 3 askari oo Yahuud ah baa ku dhaawacmay kuwaasoo doonayay in ay shaqaaleysiiyaan maxay ahayd boqolaal dad Yahuudiyiin ah kuwaasoo ay doonayeen inay ku qasbaan inay ciidannimo qortaan dagaalkii halka ka dhacay 3 askari oo ciidamada Yahuudda ah ku dhaawacmay halka markay marayso oo xaaladdu dhan walba ka soo noqotay ciidamada Yahuuddu waxay soo galeen xaafadihii Nuur Shams ee Tulkaram ku yaalay inay intay soo galaan guriyihii meesha ku yaalay ay dumiyaan cagafyo intay u qaateen bay guriyihii dumiyeen dadkii meesha deganaana ay ku qasbeen in deegaanadii ay ka barakacaan isku soo wada duub saansaanta noo muuqato waxa weeyaan hadday hadhow gadaal waxba iska bedelin carabtii inay ku midowday sidii Yahuud ay uga wada hortagi lahayn ayagoo isku wada duuban hanjabaadu meel kasta waa ka socotaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa arrinta inuu suurto geliyo biidnillaahi alkariim aad baa u mahadsantii walaalayaal muuqaalkaaba doonaya inaan idinla wadaago intaan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.